saamaynta ay ardayda ku leedahay in waqtiga casharrada la sharaxayo uu ku mashquulo mobilkiisa. Cilmi baaris ay samaysay jaamacadda Reader oo ay ku ogaanayso saamaynta uu ardaygu ku leeyahay in waqtiga casharrada ee fasalka dhexdiisa uu ku mashquulo mobilkiisa. Haddaba ardayda ayaa loo qaybiyay laba qaybood. qayb waqtigii casharka ku mashquulay mobilkooda iyo qayb casharka iyo sharxiisa awoodda saaray. Daraasadan ayaa lagu ogaaday in qolada mobilkooda ku mashquulay kala badh ay hoos u dhaceen dhibcaha ay keeneen imtixaanka. Cilmi baaristu waxa kale oo ay daaha ka rogtay in ardayda waqtiga casharka iyo sharxiisa socdo ku mashquula mobilkooda uu aad u hoos ugu dhaco xirfadooda waxbarasho. Reader ayaa daraasadan ku samaysay 118 arday oo dhigta cilmi nafsiga. Kala bar ardayda ayaa loo qaybiyay mobile iyo laptopyo, halka kala badhna aan wax la siin. Ardaydii ayaa la siiyay cashar isku mid ah, macallin isku mid ah iyo waqti isku mid ah. Waxa cilmi baaristani daaha ka rogtay in ardaydii isticmaalaysay qalabka elektarooniga ay dhibcahoodu aad u hooseeyeen, isla markaana fahankooda iyo xifdigoodu mustaqbalka fog uu noqday mid taban. Ardayga ayaa dareenkiisa oo dhan ku jeediya isticmaalka iyo wadwadka mobilkiisa, halka uu diiradda saari lahaa fahamka casharka iyo sharxiisa, taas oo aad hoos ugu dhigaysa fahamka iyo xifdiga mustaqbalka fog. Arrintan ayaa sidoo kale kala badh hoos u dhigaysa dhibcaha uu ardaygu keeno marka uu gaadho waqtiga imtixaanka.